السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وواضح أدي هذا ومهزنتين ما أنتوا سبتي وأنا لباتنك بش السجارات سبتمبر سنة كلبض كن يشان يلا باتنك مقال كان وحربا إن ندخل وداجو نن عدانا أو هرانتي السنة كي هراء لبض كن يأفري لباتنك سيارة واشنطن كدلي ويل سوماليا أو جاري أوبر ودي كوب طبعا حبضودنا كل فتي أيا الله حكومي ولي حبس مددارة لغو حكومي waan idinla wadaagayaa garsooraha muxuu ka yiri xukunkii ninkaasi markii uu xukumayay waan idinla wadaagayaa sidoo kale madaxweyne Trump ayaa shalay waxa uu aqalka cad ku saxeexay laba wareegto oo kala duwan mid kamid ah waxa ay tahay in shaqaalaha xirfadda leh ee shirkadaha Mareykanka wadanka dibadiisa ay ka keensanayaan in hadda kadib sanad kasta ay lacag fara badan dawladda siin doonaan shirkadaha dadkaasi wadamada kale ka keenaya iyo sidoo kale dadka maalqabeennada ah ee caalamka ku nool iyaguna qaab ay ku imaan karaan Mareykanka laakiin ay tahay in lacag fara badan ay bixiyaanna waan idinla wadaagaya Charlie Kirk oo berri la aasayo dad fara badan oo la filayo inay ka soo qayb galaan madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa JD Vance waa ay ka qayb gali doonaan sanadkana xalay waxay ansaxiyeen maalin la xasuusan doono oo loo asteeyay Charlie Kirk iyadana waan idinla wadaagaya sidoo kale balse marka hore soo dhawaada haddii aan ku bilaabo muuqaalka waxaa jiray wiil la yiraahdo Allah u naxariistay Cabdiqaadir Geedi Shariif oo saddexdii bishii koobaad ee January ee sanadkii 2024 lagu dilay intersection ama iskooyska la yiraahdo 236 wadadaasi la yiraahdo oo ku taala South Westiga dhinaca koonfur galbeed iyo sidoo kalena Edmonds Way isagoo gaari Uber wata xilli aroor horena ay tahay isla markaana iskooys ama intersection doonaya inuu gooyo ayaa wax calaamado waxa jira cadaan ah oo dadka marka ay gooynayaan oo ay marayaan iskooyskaasi loogu talagalay inaad ka istaagto marka wiilkan dhalinyarada ah Cabdiqaadir Allah u naxariistay oo 32 jir ahaa qofkan ayuu arkay marka Uber ayuu wada kulay telefonkiisa ayuu ku mashquulsanaa marka uu ka istaagay asoo ku dhici raba markii uu ka istaagay daaqadiisa ayuu dajiyay waxa uu doonayay qofkii inuu raali geliyo maadaama uu ku dhici gaaray laakiin ninka lagu dhici gaaray magaciisa waxa la yiraahdaa Alex Matthew Wagner waa 23 jir waa uu cabsanaa marka qorigiisa bustooladiisa ayuu la soo baxay sida kaamarada gaariga Cabdiqaadir ugu xirneyd laga arkay isagoo doonaya inuu raali geliyo ayaa 11 xabadood uu ku dhuftay meeshii ayaa Cabdiqaadir uu ku geeriyooday markaas kadib Alex Wagner waa uu cararay oo guriga saaxiibtiis ayuu tagay wuxuuna yiri xabadda dhacaysa ma maqlaysid macnaha waxa uu iska dhigayba qof aanba dhibaato soo geysan inuu inkira ayuu isku dayay sidaas darteed waa la xiray maxkamadeyntiisa ayaa bilaabatay hadda bishii 7 ee July ee la soo dhaafay ayaa xirbeegti waxa ay ku heleen dil heerkiisu yahay midka labaad xukunkiisa ayaa waxa uu ahaa talaadadii hadda la soo dhaafay oo la xukumay sidaas darteed ayaa waxa lagu xukumay 235 bilood oo u dhiganta 19 sano iyo waliba 7 bilood oo xabsi ah ayaa lagu xukumay maadaama ninkaasi si ula kac ah oo bareer ah uu u dilay waliba qof xilligaasi isku dayay in uu raali geliyo haddaba marka garsooraha markii xukunka uu ku ridayay ninkan la yiraahdo Alex Wagner waxa garsooraha oo magaciisa la yiraahdo Richard Okrent uu yiri ma ka arko in ay ka muuqato inaad arintaasi ka shalaynayso in ka badan 50 qof ayaa maalintii xukunka maxkamadda timid oo ehelkiisii saaxiibadiisa qaraabadiisa iyo waliba masaajidka uu ku xirnaa waxa la yiraahdaa ninkan dhintay Allah u naxariistay shimbiraha ayuu quudin jiray masjidka banaankiisa intuu raashin u soo gado ayuu siin jiray marka dad fara badan ayaa yimid marka maxkamadiisa isagu raali gelin ayuu bixiyay wuxuu yiri waan ka xumahay qoyskii dhibaatadii aan u geystay iyo xanuunkii aan ku sababay laakiin garsooraha oo la yiraahdo Richard Okrent waxa uu yiri ilaa hadda wax shalayta ah kaama arko inaad ka xun tahay dilkaasi aad geysatay sidaas darteed waxa uu yiri qofka aad dishay Cabdiqaadir waxa uu si accidenti ah ayuu inuu kuugu dhaco asagoo arkay ayuu ka istaagay gaarigiisa ayuu ka istaajiyay sidaas darteed waxa uu isku dayay in uu ku raali geliyo marka dad yar ayaa sameyn kara xaaladaas oo kale markay ay ku jiraan inta qorigooda ama bastooladooda ay la soo baxaan in risaastii ay ku jirtay ay ku faarujiyaan
qof doonayay in uu raali geliyo marka baarayaashu waxa ay sheegeen in Wagner uu maalinta habeen uu cabsanaa subaxaasi isla markaana uu u socdayba dukaan qamriga lagu gado uu doonayay inuu qamri kale oo dheeraad ah uu ka soo gato marka garsooruhu waxa uu u sii raaciyay waad cabsaneed sida darteed waxaad go'aansatay in aad qamri kale oo fara badan aad soo hesho qorigaadana horay ayaad u soo qaadatay marka qof cabsan inuu qori qaato inta badanba waa sharci darro ninka dilka geystay qareenkiisa oo la yiraahdo Jeffrey Wolfenberger ayaa waxa uu yiri ninkan dilka geystay waxa madax maray qodobka labaad ee dastuurka oo dhahayo qofku waxa uu xaq u leeyahay inuu hub qaato iyo sidoo kalena YouTube-ka muuqaalo fara badan oo ka daawaday qofku inuu isdifaaca ay tahay sidaas darteed marka waxayba ula muuqatayba in isagu uu isdifaacayo oo qofkan uu doonayay inuu dilo waxa uu garsooraha ka dalbaday in xabsi yar lagu xukumo laakiin garsooruhu waxa uu yiri muuqaalo fara badan oo ka sheegaynaya qodobka labaad ee dastuurka ayaa ku jira YouTube-ka mana ku sheegayaan inaad si micna darah qof u disho amaba sidoo kalena in muuqaalo fara badan oo istifaacista qofkana waa ay ku jiraan YouTube-ka laakiin macnaheedu ma ahan in qof aan dhibaato ku geysan oo khatar aan kugu ahayn in aad iska toogato arrintaasi meesha kuma jirto marka dhammaanba waxyaabaha dhacay ee raaligelinta kaamarada Cabduqaadir gaarigiisa ugu xirneed Uberka uu ku waday ayaa duubtay waxaana la arkayay Cabduqaadir in uu isagoo ku dhici rabay uu ka istaagay kadibna daaqadiisa inta uu dajiyay Wagner uu ku yiri isagoo dhahaya raalli ahaw amaba I am sorry waan ka xumahay Wagner qorigiisa ayuu la soo baxay bastooladiisa markaas kadibna 12 xabadood ayuu ku dhuftay Shariif halkaasi ayuuna ku geeriyooday marka dadku aad ayay u soo dhaweeyeen dadkii ka soo qayb galay markii xukunka lagu ridayay sidaas darteed waxay yiraahdeen garsooraha waan ku faraxsanahay in uu dhageystay cabashadayna maadaama impact statement ee meesha ay ka jeediyeen wanaagii uu lahaa Cabduqaadir iyo waliba sidii communitygiisa uga dhex muuqday iyo sida macna darada lagu dilay ayay meesha ka sheegeen intaas haddii aan ka gudbo xukunka lagu riday ninkaasi dilay wiilkaasi Soomaaliga ah Trump waxa uu shalay aqalka cad ku saxiixay laba wareegto oo kala duwan labada wareegto mid kamid ah waxay tahay fiisaha la yiraahdo H1B oo shaqaalaha xirfadda leh shirkadaha Mareykanka ee wadanka dibadiisa ay uga keensadaan in hadda lacag fara badan shirkaduhu ay bixin doonaan marka qof ay ka keenayaan wadanka dibadiisa inta badan shirkadaha tiknoolajiyadda isbitaalada maqaayadaha hoteelada ayaa shaqaalahaasi xirfadda leh waxay ka keensadaan wadanka dibadiisa markii hore viisahan H1B application waxa lagu xariin jiray $215 shirkaduna waxay dawladda siin jirtay $700 iyo waliba $80 laakiin hadda Trump waxa uu yiri shirkadaha qofkaasi doonaya inay keensadaan shaqaalaha Mareykanka loo ilaaliyo waxaa looga baahnaan doonaa in ay sanad kasta dawladda siiyaan $100,000 Mareykanka ah marka aad qof keento inta sano uu qofkaasi ku shaqeynaya sanad kasta dawladda waxaad siin doontaa $100,000 Mareykanka shirkadaha Amazon Microsoft Apple ayaa inta badan waxa ay shaqaalahaasi ka keenaan wadanka dibadiisa iyagoo ka cararaya shaqaalaha Mareykanka mushaarka faraha badan ay ugu shaqeynayaan laakiin dadkaasi India ama Shiinaha ama Indonesia ama meelo fara badan laga keenayo lacag yar ay ugu shaqeynayaan sidaas darteed ay u doorbidaan ilaa iyo sanadkii 2005 Congress-ka ayaa waxa uu qoondeeyay fiisaha H1B la yiraahdo 65,000 oo shaqaalaha in sanad kasta wadanka dibadiisa shirkadaha Mareykanka ay ka keensan karaan laakiin waa inay haystaan bachelor degree amaba wax u dhigma waxa sidoo kale jirta 20,000 oo kale oo inay master degree haystaan amaba shahaado ka sareysta iyagana loo baahan yahay in ay Mareykanka ay shirkadaha ajnabiga ah ay ku keenaan sanadkii la soo dhaafay 442,000 ayaa soo codsatay fiisahaasi H1B waxana waaxda immigration-ka u qaabilsan dawladda Mareykanka ee USCIS ay u sameeyaan lottery sanad kasto si loo kala saaro shaqaalahaas wareegtada kale oo Trump uu saxiixa waxay qusaynaysaa dadka maalqabeennada ah ee wadanka dibadiisa amaba wadamada kala duwan ku nool waxana uu abuurayaa nooc cusub oo visa ah waxana noocaasi cusub oo visa uu yahay in qofku uu bixiyo $1 milyan si uu Mareykanka u yimaado oo isagu uu baxsado amaba sidoo kale haddii qofkaasi uu yahay qof xirfad leh oo shirkad ay shaqaalaysiinayso shirkadu 2 milyan ay dawladda siinaysaa si ay qofkaasi ay u keento waxaana loogu magac daray Trump Gold Card sidaas darteed waxa uu Trump sheegay in lacag dawladda ay soo gelinayso fiisayaashaasi lacag gaaraysa $100 bilyan si dawladda Mareykanka deynta loogu leeyahay ay isaga bixiso marka waxa uu yiri lacag fara badan waa inaad bixisaa si aad Mareykanka u timaado Trump waxaan ognahay inuu horay u sameeyay platinum card wax la yiraahdo oo dadka
maraykanka doonaya inay maal gashtaan fiisa u gooniyaha ayaa jiri jiray marka waa kii bedelay oo platinum gaadhkaasi ku bedelay oo ah qofka inuu $5 milyan uu bixiyo si uu kaarkaasi uu u helo marka qofkaasi ajnabiga ah 270 maalmood ayuu maraykanka uu joogi karaa isagoo aan wax canshuura aan ka bixinaynin dakhliga ka soo galo meelaha ka baxsan maraykanka marka horeyna taas ayuu u sameeyey haddana labadaasi wareegto ayaa Trump uu shalay saxiixay ugu dambeyntii ninkii Charlie Kirk oo wiilkii dhalinyarada ah Tyler Robinson uu ku dilay jaamacadda UVU 10kii bishan maalinta beri ayaa waxa lagu aasi doonaa garoonka la yiraahdo State Farm oo ku yaala Glendale Arizona ilaa iyo 100,000 oo qof oo ka badan ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan aaskiisa madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha wasiiraduba waa ay tagi doonaan Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka JD Vance labaduba hadal ayay ka jeedin doonaan aaskiisa sidoo kalena xaaskiisa Erica ayaa waxa loo magacaabay ururkii uu hogaaminayay Turning Point USA inay madax ka noqoto waxaana ay sheegtay in hawshii uu waday ay sii wadi doonto oo aysan istaagi doonin waxaa jirta in hadda jaamacado fara badan laga casuumay isagoo jaamacad joogo ardada kala doodaya fikirkiisa inuu ka dhaadhiciyo oo halkudhigiisiina ahaa prove me wrong inaan qaldanaha ii caddee ayuu dhintay marka waxa ay tiri hawshiisii halkiisa ayaan kasii wadayaa jaamacadihii uu tegi jirayna aniga ayaa tegaya sidaas darteed ayaa madax loogu doortay ururka waxaa jirta sidoo kale hadda Congress inuu ka doodayo in loo qoondeeyo maalin Charlie Kirk lagu xasuusan doono aqalka sanadku xalay waxa ay meel mariyeen maalinta lagu xasuusan doono Charlie Kirk oo maalinta dhalashadiisa ku baagan waana bisha soo socota 14keeda marka aqalka hoose waxa la filayaa inay ansaxiyaan madaxweynuhuna uu saxiixo oo loo qoondeeyo already maalin isaga oo kaliya lagu xasuusan doono marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo